reerkiina wax gabiya ama heesa ama abwaanaba ama fanaanaba ku jira bay fanaan kuma jireen laakiin awogay محمد نور فاهي الليبان أنا نسهان محمد تور لو رجلي ربنا حريستي شناها كورابي آمين يا أوجي بتشامعها توي كبير شري صح أو دين كستوبريا أنا شيرين عشلة يسي ديو يوحنا جرهبا حدنا لكن والله هيايو حكم لها أوجي ولا شيء واحد تكتي حاجة نظري درا دبي إيريا ده كدمنا دلاي كتكتي مركها دلا iyadoo isu soo bedeshay oo waxoogaa ayay timiday gabaygu tiriyo waxa kamid ahaa ka shaqeyso reeraha qotida wadagaa shilise awooga baba khatar hay marka xasano warno suugaantaad waa suugaan balaaran wax badan oo ku soo kordhisay fanka Soomaalida adigu markii aad yareed fanka xiiseynaysay intii aanad fanaannimadaadu ay soo shaax bixin ayaad ku dabadeen jirtay waxaan iska dhigeysan jiray Cabdi Taliili iyo Axmed Nuugi imaanad u jeclaa marka heesaha la eego laakiin gabayada maansada gabayada waxaan xiisayn jiray timacado kale waan xiisayn jiray yamyamo kale adraawi ragii waaweynaaye macnaha u yaalay suugaanta maxaad ka xasuustaa taariikhdii fankii hadraawi ama timacada waxa ka waxyaabaha ku hadraawi waa mid kamid ah dadka maanta ugu magaca weyn leh suugaanyahanka Soomaalida waa sax ilaahay cimriga iyo caafimaadka ma ha barakeeyo aragti ahaan halka uu ka hadlo waxa weeyaan aragti ballaaran oo qof maskaxdu kala baxday ballaaratay dadkan aan la aragtiyahay marka hadraawi waa qaamuus dadka Soomaaliyeed leeyihiin waa maktabad uguma soo koobi karo erey ama laba erey maansadiis ku balaaray laguma soo koobi karo anu soo noqono fankaaga xasan dhuxul absaalax xidigaha geeska qayb weyn baad ka qaadatay waxyaabo badan baad u qortay marxalado badan bay soo mareen maanta halkii joogaan fanka xidigaha geeska iyo fanka Hargeysa maanta halkuu joogaan damashii ugu wanaagsan masleeda maxaa ka marxaatiyo wada caan safar badan oo Soomaalida gilgilina way sameeyeen صح qofkuna nolosha siyaabo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan isagoo iska fanaan hadana wax kale ka shaqeyn karaa wax baran karaa marka xidiguhu maanta gulbay ka joogaan mar baa jirta aan qofna qof garanay mar baa jirta aan heesaha qaadan geedkan aan gaadhin mar baa jirtay magaca xidigaha geesku aanu guri iyo gobol iyo geed midna gaadhin صح حسن روح الله بصالح منسوين كاغا منسوين بدن waxa ku jira dhiirigelina wadaniyada wax waad ka qortay heesa badan baad ka sameysay wadaniyada Soomaaliland maanta ka taagan say kula muuqata anu horta wadani ma ahay marka la yiraahdo wadaniyada wanay intii ugu weyn leeyahay waxa weeyaan dalkayga صح dadkaygu hagaaga ka sii wanaagsan صح waxyaabaha aan ka hadleen ku baraarujiya waa in wax wanaagsanaadaan marka bulsho wanaagsan la helaa ayaa dal wanaagsan la heli karaa marka la helo bulsho caafimaad qabto oo aqoon ahaan dhisan oo horumar ahaan dhisan ayaa la heli karaa bulsho jahli iyo dib u dhac ka bad qabta marka dhiirigelinta iyo maansooyinkii waxay u badan yihiin in bulshada dareenkeeda la hadlo هو تصالين صح لكن حسنو حاتري مركب bulsho fiican la helo ayaa dal fiican la helaa miyana la oran kareyn marka dawlad fiican la helo ayaa bulsho fiican la helaa saameyn intee leeg bay dawladaha fiican ku yeeshaan si loo abuuro bulsho fiican horta dawladnimadu dadkay ka timaada صح oo haddii aan xisbi wanaagsan jirin noloshan dimuqraadiga ah iyo wadamada dimuqraadiga ah haddii aan xisbi wanaagsan jirin dawlad wanaagsan ma iman karto صح waayo dawladdu xisbigay ka timaada صح xisbiguna shacabku ka yimaada marka haddaan shacab muwaadiniina oo qarannimada dalkooda ilaalintiisa u soo jeedaan la helin oo wadaniyada ku baraarugsan dawlad fiican lama heli karo صح marka wixii walba waxaad xoog saaraysaa in dadka horta bulshadu wanaagsanaato bulshadu day wanaagsanaato waxa kale oo hagaagay صح dad wanaagsan baa la helaya dal wanaagsan baa la helaya aqoon wanaagsan baa la helaya حسن Soomaalidu sida dawladaha kale ee Afrikada Soomaaliland ha noqoto Soomaaliya ha noqoto Djibouti ha noqoto ummadahan geeska ku nool oo dhan ha noqdaan ama Afrikada oo dhanba waa dad la gumeystay isticmaar weyn baa soo gaaray tacliinta ay dhigtaani badiga waa tacliin gaalaad
oo kasoo lagu baro dad badan oo gaalada wax u soo taray adigu say kula muuqataa maanta marka la leeyahay dib u curasho dhinaca Afrikada dhinaca Soomaalida adduunku maanta sida uu heerka uu taagan yahay qofka Soomaaligu si uu dib ugu curto uu dhaqankiisa uga tagin uu dawlad fiican iyo bulsho fiican u sameyn karo tacliintu dowr intee leeg bay ka qaadataa baad u malayn sideena loo heli karaa horta tacliintu waa furaha nolosha wax walba صح dalka dadka guusha dhalak waa furaha صح marka laga hadlayo marka ummad gumeysi ku dhaco صح inay gumeysiga iska dul qaadaa way fududahay waayo hal cadow bay leedahay gumeysi leeyahay laakiin marka ummaddu dhexdeeda furfuranto waa markay inay dhinac wada jeestaan adagta صح Soomaalidu iyadoo Soomaaliya markii gumeystuhu dhulkeeda yimiday waxaan daabyadii xuduudaha kala sooca uu kala sameeyay laba gobol oo dhulkii Soomaalida kamid ah wax lagu kala daray dalalka dariska halka intii kalena saddex loo qaybiyay labada gobol ee dhulkii Soomaalida laga jaray laguna kala daray Kenya iyo Ethiopia maanta waa labada gobol ee ugu khayraadka badan wadamada geeska halka waxa ka cad in istiraatiijiyad iyo qorshe cadaan uu gumeystuhu kala ahaa markii horeba صح muddo 8 sanadood ka bacdi kontumeeyadii ku beeray ay Soomaalidu baraarugtay waqtiga dhulkeeda la qaybiyay 8 sanadood ama 7 sanadood ka bacdi baraarug waxay ku baraarugtay isla doonashada shan Soomaaliyeed markaasay hanbaabirtay markaasay toostay iyadoo baaridoon iyo geedu gelisay in isla yeesho shan Soomaaliyeed oo calan qura leh haddaba maskixiyan marka dib ugu noqotay isweydiiso maxaa diiday in shan Soomaaliyeed oo calan qura leh la helo waxa ku soo baxaysa aragtidaas inay shaqayn weydo inay sabab u ahayd dadka afiya dhaqan iyo isriidin walaagta Soomaalida ah oo iska indhatiriyay xuduudihii iyo xeerarkii caalamiga ah dhulkooda lagu qaybiyay xandaabyada dhulka Soomaalida loo kala sameeyay oo wax kaliya tii saacad ugu hor yimiday in la isla helo shan Soomaaliyeed halka waxa ka cad in maanta aanu jirin dhul Soomaaliyeed oo shan balse dad Soomaaliyeed oo shan u qaybsan jiraan صح waxa marka la doonayo Soomaalida in la mideeyo siyaabo badan baa lagu mideyn karaa siyaasad baa lagu mideyn karaa way socon weydo adiga sheegay dhaqan ahaan waa lagu mideyn karaa maanta qof kasta oo Soomaaliya adigu ku garanaya laab saalax hadaad jigjiga ka dhextiraa waa la garanaya marka anu waxaan isleeyahay mideynta ay Soomaalidu ay ku dadaasho miinan hayn tan fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka inta ay raadinayso mideyn siyaasadeed iyo xuduudihii la kala xidhay iyo waxyaabahan maanta ay awood ay u haynaysa uga baxdo miinan habooneyn in awood la dul saaro in suugaan fan dhaqan Soomaaliyeed oo tayala in la beero Soomaalidu afay ku midaysan tahay صح waxa kale ee qoomiyadaha kale geeska degaa iskaga dhowday waa af صح hada ma garatay laakiin waxa cadaynan ana wada socon oo ismi jaxaabinta iyo isku muuqashada dhexdooda taala صح ee uu kala dhuumashada shisheeyo ay qayb ka tahay inaan waxba ku wada socon markaan waxaan aaminsan hadii Soomaalidu wada socon kari weeyday iyadoo kala socoto qorshe guud oo ku wada socoto ma yeelan kartaa صح imika waxa jira geeska duufaanada dabaylo siyaasadeed ba ka jira marka aan waxaan aaminsanahay intay Soomaalidu ku midaysan tahay af kale ee dhaqan kale ee diinta leh in horta la adkeeyo muhiim ah siyaasaddu sidoo ina ka geerisa ku nool iyo ka jigjiga ku nool iyo ka Djibouti ku nool iyagoo maamulkooda dawladnimo iyo systemkooda uu kala duwan yahay ayaa haddana wada dhalashiyo dhiig iyo dhaqan ka dhaxayaade sidaas oo kale bay ka hargeysiye muqdishona uga dhaxayaan Soomaalinimaduna ma aha hal canaan wada hoosatan in Djibouti halkeeda ku badbaado Soomaaliland halkeeda ku badbaado dawlado Soomaaliya halkeeda ku badbaado la helo maadaama aanay jirin wax lagu wada socdo iyo wax la isku raacsan yahay oo jiilasha dambe mustaqbalkoodii duulaan lagu yahay oo hoggaanka siyaasiyiinta dadka hor jooga imika yihiin kuwa aan dhinacna woodi waxay ku heshiiyeen inay heshiin صح heshiis waxay ku yihiin inay heshiin Soomaaliland baan imanaya Soomaaliland amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo xasiloonideedu ma aha wax ka yimid dibadda oo wax dhexdeeda ka yimid wax dadkeedu keeneen hadaba gartay inkastoo 28 sanadood ay jirtay Soomaaliland sidii wax la doonayay aanay u qabsoomin haddana guul weyn bay joogtaa صح hadaba gartay Soomaaliya dhibta ka taagan Ilaahay ka dulqaadan leh amiin Djibouti-na nabadgelyadeeda Ilaahay u siyaadayaan leh amiin kilalka iyo geersana kilku waa tantay jigjiga ka degay dhalinyaradu waxay fursado u helayaan inay wax bartaan صح waayo waxay helaan jaamacad bilaash iyo iskuulad bilaash laakiin haddana waxaa jirta in dad fara badan oo Highlanders oo Ethiopia kale ka yimid ay jigjiga ku soo badanayaan
oo inanka albaabka ka shaqeynaya inanta shaqo hoosaadka dadka haya waxay u bateen Etoobiyaankii kale صح marka haddii systemka dowladnimada Etoobiya isbedelo صح oo la yiraahdo nin waliba halku joogo ka codeynaya khatar bay ku tahay Soomaalida geeska صح Soomaalidan tigjigayo walaalahay khatar bay ku tahay shan hogaanshan Soomaaliyeed oo imika isku imanaya oo wax ka arrinsanaya ma jiraan صح hadda ma galatay marka in dadku aqoon ahaan ay bislaadaan baa muhiim ah kama hadlayo siday imika Soomaalidu u nooshahay maxaa dhacaya waxa muhiim ah in laga hadlo warkontonka sanadood ama 40 sanadood soo socota mustaqbalka inaka Soomaaliyeed muxuu noqon doonaa ma laga yaabaa inuu dhulkii awoowayaashii iyo ayeyaashii oo labadeena kala abaad inay berrito la jiilashaasi martiya magan uga noqdaan ka shaqaysigiisa iyo ku noolaashiisa cid kale waayo dadka maanta siyaasadda jooga dhaxal wanaagsan iyo ifafaale wanaagsan uga meeytay maalmo qabaadeen jidkeedina ma hayaan hadda ma garatay sida markay tahay dhalinyaro bisil baa loo baahan yahay sida markay tahay waxa loo baahan yahay dad aqoon ahaan iyo asluubda lahaanshaha dalkoodu wax walba kala weyn yahay aan ku warramo marna qofku dibaduu tagaayo dalxiisu noqdaa marna qaxootigu noqdaa labadaas way kala qiimo badan yihiin hadda ma garatay xorriyaduna waa hantida ugu weyn qofku bini'aadamku heli karo hadda ma garatay marka qorshayaasha geesku Soomaalida dhulkeeda saameyn buu ku yeelanayaa Soomaalida dhulkeeda saameyn xooggan buu ku yeelanayaa waayo isdhexgal baa jira inka geeska laga wado isdhexgalka laba faktor waaweyn baa loo kala saaraa waxa weeyaan mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale ka siyaasiga wuxuu meesha ka saaraya xuquuqihii masiiriga ahaa ee dal madax bannaan lahaayeen oo dhan صح ka dhaqaaluhuna wuxuu abuurayaa in la wadaago khayraadka noocyadiisa kala duwan sida beeraha badaha dekedaha haddii isdhexgalkaasi hirgalo Soomaalida khatar buu ku yahay labadaas si loo isku waafajin hadaba dee waxay ku xidhantahay siyaasiyan sida loo fahansan yahay cidda wadataa waa cidda fahansantii markasta isdhexgalkuna wuxuu faa'iido u yahay cidda tirada badan leh ee aqoonta leh ee awoodda leh dimuqraadiyadda sidaayba inta badan uba kulliba dadka kala hagaysa saddexda Soomaalidu midna ma leh waayo Israa'iil carabta kale waxay ku balans garaysaa aqoon iyo dhaqaale iyo awood Soomaalidu inta midna ma leh marka isdhexgalka geeska ka socda maqli doontaan dhawaan Soomaalidu wuxuu yahay Soomaalida u dal صح laakiin xasanow anagoo taasi raacayna haddana waxaa jirta taariikh baa jirta Soomaalidu taariikh bay leedahay taariikh markaan leeyahay taariikh waxaa jirta dhibaatooyin baa soo kala gaaray Soomaalida afkan namideynaya iyo dhaqanka namideynaya iyo diintan namideynaya marka laga yimaado dhibaatooyin baa dhacay dhibaatooyinkii weli lama dhayin ma kula tahay maanta marka lagu soo noqdo Hargeysa iyo Xamar xaaladda ka taagan iyo xiriirkan lagu heshiiyay inaanan la heshiin idinka ka soo hadlaysa ma la oran karaa anu waxaan u jeedaa dhaqanka siyaasiga Soomaaliyeed ayaa ku horjeeda ayaa heshiisku ayna la heshiinba صح laakiin markaan u soo noqono arrinka Soomaaliya iyo Somaliland maanta ka timiday waa dal doonaya in la aqoonsanaado waa dal maanta taagan oo isku filannahay oo Soomaalida uma baahnin ma kula tahay adigu Soomaalida shisha Soomaaliya haddii ay aqoonsanaan lahayd waxyaabaha ay maanta tabanayaan reer Somaliland in ay Somaliland goonigan ay u baxday aynan u baxin ma kula tahay sidoo u aragtaa arrinkaas sidoo aragtaa horta 30 sanadood ay kala dhusheentay way kala dhusheeyeen waro oo iga mid baad hayay kaamidii aad taagnay wixii kaga lumay ayaa ka badan hadda ma garatay wixii istiri lahaayeen iska gaashanaya oo kala madax bannaan ayaa meesha ka baxay صح nabadgelyada iyo midnimadana waxaan aaminsanahay nabadgelyadu muhiim tahay hadda ma garatay صح dadku markay qulubta ka midaysan yihiin baa midnimo la helaa صح laakiin dad qulubta ka qaybsan midnimadoodu waxba kuma taalo taa macnaheedu ma aha inaan diidanahay in la helo dad dhinac u wada jeeda laakiin waaban la helay oo faragelin siyaasadeed oo shisheeya imika xagga walaalaheena Soomaaliya aad ugu badan taasi waxay diidaysaa in dhinac la isku raaco laakiin anigu waxaan aaminsanahay inaan ka Somalilanderka ahay ee Hargeysa ku nool inuu jid iyo daw u leeyahay inuu xuquuqdiisa si madax bannaan u helo 30 sanadood inuu lugta uga xidhnaato ma aaminsan صح aan ku soo noqono fankaagii xasanow maansooyin badan baa tirisay aabaha cadweeyaan
la guurso maxaad ku keentay darajo baraarug waxaan doonay inaad nooga yar faallooto maansadan la guurso maxaad ku keentay run ahaantii haween badan ay la dhaceen anigu baan ka mid ah iyo aragtidaad ka qabta haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka si guudba adu ma dadka heshaa la guurso maxaad ku keentay maansada waan ka helaa laakiin isla guursiga kale kama helo in gabdhaha la guursada kama helo in la guursadana kama helo horta hadday gabadhi ku tidhaahdo waan gar qaataa sax been bay kuu sheegtay hadday ku tidhaahdo ma hinaasana been bay kuu sheegtay markaa dumarkaad kala siman tahay la guurso maxaad ku keentay waxaad maanso aan sameeyey muddo beri hore bas ahaan waxay ka hadlaysaa gabadh lala guursaday hargeysaanu ku kulannay way iga sheekaysay ingiriiskii deganayd qisadeeda inaad haysaa laga yaaba dadkuna ay hayaan markaa waxaa leedahay gabadh aduu ka hadlaysaa la hadlaysa ninkeedii la guursaday iyo ninkii gabadhiina la guursaday iyo nafteeda saddexdaa qaybood ka hadlaysa haddaan in yar ka dulmar waxaa leedahay ka shayday guuxa jooji istiijaadoo gax taagan ilmada indhahaaga keedso dhibtiiyo cadhadaada kaadso xiska iyo aqligaaga ka kaasho waktiga kakan iyo duruufta lur maaha inaad kuftahay kaskaabnidu waa habaaska kobtaad ku dhacdo gurnaato hortaa dumar u kadeedmi kadmoogu kadab hankaaray raggii waa kala xmadhaansha kunkii boqol baa hagaagsan waa 10%. haddii guur lagu kadeedmo haddii guri lagu kashkaasho haddii kanba lagu hungoobo haddii kobta muranku yaallo kabadda cayeed ku soo hoday haddaadda kafaar la kaartay kawaanka haddaad dul taallo kubkaa jabay maanta qaado rajada kabashada ku naawi giftiya nabarrada korkaaga adigu dhaya waad kartahay naftayda ay barakadeedka adigu maasadaas ah صح xasanow reebnimada maxaad ka qabtaa waxaan dhageystay aduu ku wareysanayo cabdisalaam hirin qoyaalada ka wareysanayo waxaad samaysay hees la yiraahdo halkaagu hadhaa furey hebel reernimada maxay tartaa maxaase laga faa'iidaa Soomaalidu maxay uga hadhilaada horta reernimadu qofka faleebo u baahan ee dhakhtar yaala waxba ma tarto صح هذا ما قلت صح يوقفك واحد ليه مكتب كبحسان صح أفر إنك يجمع على وجه جيران العقد كما تري صدق صح هذا ما قلت إلا كينك الدنيا إنه سلان سياسي كردي هذا صعب كله وقتها وحنا نهاي وما دو أفضل بند الميتية صوم عليه ملك استوجبت هذا كلامك أوجا يا أفراد محكو في أنا دور كل شيء كلها حاجة من الجيران أنا دي شيء بس laakiin kaagii labaatanaad baad garanaysaa taasi waxay ku tusaysaa in qof kastoo inaga mid yahay xuquuqda qof dhintay ilaalinayo qof nool la ka tagay awogaaga dhintay kaagama baahna inaad difaacdo iyo inaad u dagaalanto iyo inaad ku faanto inaad ducayso iyo kaaga baahaya صح xasanow Soomaalidu waxay u degtaa badiga qabiilo la yasaajir Soomaaliyeynta aad ka timid way ka jirtaa Djibouti way ka jirtaa meel kasta Soomaalidu ku nooshahay way ka jirtaa maxaa keenay baad u maraynaysaa Soomaaliya oo dhan inay isku tagto oo reer kaliya ta la yeeso si gaar ah loo yeeso waa cudur ka mid ah cudurrada jahliga watada hadda ma garatay ay cudurrada waaweyn ee dadka ku dhaca soo AIDS kama maqal oo corona ma maqal صح cudurrada noocaas ee dadka ku dhaca mid ka mid ah oo qulubta kaga dhacun buu cudurkana ka mid yahay صح sidaan u yees qof ila mid ah oo ila midaba oo ila diina oo ila dhaqan oo ilaahay agtiisa inuu iga dhow yahay laga yaabo laabtan garaacaya laan dheera waraadee indhigiisu war maadaa doortay sultaan lahaa laan dheeranimada ma doortado dircan iyo shalmadan xirantaada u dooran kartaa dee laakiin inta tahay ma dooranaysid صح sidaa darteed inaka beelaha la haybsooco ka soo jeeda xaqiisa iyo xuquuqdiisa kuma waayi karo dhalashadiisa diin هذا ما قرأتي وقففك يدل مية صومالي اللي حديد كتاجر هذا شو نسمى المرة ما هو الله عقابه يا بدي عقابته وقص عطوال صح حسنا وهي سها وهي سفر بدن في بعض وجه عشر هي سهي القرطي أودا الدنيا الميد بمشعلي كل بتهدم يسان شعلها لكن هذا ميد شعلها هي عن حاسك يوسم ميان شعلها ونمعان كويس يعني معاني يو عرفه وكويس صح قلبي قسمها يا كسوجع ما كيس تريا كتبه halkaan kugu soo hay kali waxaan ku sabaa xasuus bariga ingiriiska ay joogtay way maqlaan la socday adoo iga maqan sanado salkaan u dhigaa axdiga sameeyay milguhu gayaan axdiga siiyaan xubbiga siyaad gelin
yaasmiin maxamed warsame xaaskayga ما شاء الله waan ka faa'iidaysanaya halkan waan ka salaamayaa iyada iyo awlaadeyda iyo ubadkayga allah barakeeyaan leeyahay أنا أقول وأني دعينا وحنا لنا إلهي قيسكي سوارة hooyaday cibaado maxamed nuur faahiye liibaan xiljiid guuleedna ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حسنو Soomaalidu waxay ka midaysan tahay af laakiin afkaasi lahjado badan baa ka abuurmay adigu maxay kula tahay farqiga u dhaxeeya luqad iyo lahjad horta lahjadu waa qaabka loo hadlo sax luqadina oo waxa lagu wada hadlo afka loo wada hadlo ay dadku isku fahmaan imka luqad baynu ku wada hadlaynaa soo ma hadii sax adigu waxa laga yaabaa in lahjada ahaan Djibouti sax wala yax oo kelmado fara badan oo intaan Djibouti joogay ay maxaa ka mid ah wixii ka yaabiyay lahjada Djibouti ay kamid ah kaali soo badaalanay waan barqaamay waan marqaamay uji waan barqaamay ha hada ma garatay argisa hadii la joogi lahaa soo badaalanaa maxay ahaan leed waan soo dabaalanaa hadii waan soo dabaalanaa ha marka daada iyo baada malahda waa lahjada keenaysa dama imka xamar si baa looga hadlaa sax abbaay adigu si waay ma fiican tahay baa lagu oranay hargeysana arway arwaya Djibouti waxaan ka hayay hada ma garatay marka lahjadi waa kala duwanaanshahaas ay leedahay laakiin luqadi waa waxaan ku wada hadlano ee aynu isku fahmano ama ingiriis ha noqoto ama carabi ha noqoto ama soomaali ha noqoto xasan wada hadalka haysta barnaamij laga sameeyay xamar oo ka daawaday youtube-ka waxaa la iskugu yeedhay suugaamaystiyada af soomaaliga oo dhan iyo dadka culimmada afka nin ka mid a dadkii hadlayay baa yidhi soomaalida weligeedba waxay haystaa beer dhaqatada afka soomaaliga suugaantu ay ku qoran tahay ee maanta la wada aqoonsan yahay waa af meel kaliya tun lagaga hadlo adigoo reer Hargeysa badiga waxa la moodaa marka af Soomaali laga sheekeynay afka inuu Hargeysa ku dhashay Hargeysa ku koray Hargeysa ku kobcay Hargeysa una Soomaaliga ay ka tahay madax arrinkan maxaad ka qabtaa horta nin waliba gobolka ka soo jeedo uu yaqaanaa uu afku wanaagsan yahay wax af guri la yiraahdo iska jira sax oo Djibouti af guri bay leedahay sax Muqdisho af guri bay leedahay mudug af guri bay leedahay anigu ma oran karo af Soomaaliga xuduudtiisa iyo xaruntiisu waa halka iyo halka iyo halka sax waayo garsoore uma yihidii هذا ما قرأت لكن إن أفكار هرجيسة لقى هلا سوقنا هان قني هم نوجه جيبوتي بعد جوكتا مدة من قبلها جوكتا أي لا بدو دوات توركس لا بدو دوات جيبوتي كل سوقان تهاي إن ولا سيشة جينا ديما يصير إن وزيرو إلياس مصدق ولا لا سيشة إنه كفر حسين هنا كوسو دو جيبوتي كوسو مرتقاده إماتي كا جيبوتي محا وصوبها من ضلحيسهم بيهيد مسا إماتي شقيه قلت جيبوتي أول بوري من شيء صح لكن احنا من شروط الشخصيه صح ام بانو كسيدو فيو ترانس ام بانو سو دغيه ام بانو سو كلو يمدي لكن سي اوفيشال حكومته يسو عسونتي صح الياسنا صاحبكينا وان سلاميا ان الدليرada la hadlo baahay صح masuuliyinkii waan akhriyay waxaan oran karay waan idhi صح idinkaaba kamid wada Djibouti TV صح Djibouti haye dhalinta maanta joogta Djibouti ama Soomaaliya ama Somaliland ama Ethiopia maxaad ku dhiirigelin lahayd anagoo ku soo xidhan barnaamijka dhalinyarada Djibouti waxa leeyahay waa xor baad ahaydeen 40 sanadood umada ka horeeyay صح idinka dawlad haystay teknolojiyaduna imka xoog bay u socotaa door intee lag bay ka qaban kartaa wad malayn horumarka teknolojiyada waxyeeladeeda haddii la iska ilaaliyo waxtarkeedana la isku ilaaliyo waa wax wanaagsan see la iskaga ilaalin karaa wad malayn dagaalada maskaxda ee dadka lagu soo qaaday qayb ka tahay marka waxyeeladeeda la iska ilaaliyo ma lahayn sax maxaa Soomaalida uga baahan inay teknolojiyad fiican iyadoo yeelato Soomaalida horta aqoon ahaan ma dhisan tahay ka horeysa maalin ma waxa tagay Turkiga meel baan fariisto habar yar bay soo gar fariistay inay yar bay la soo baxday saas uu rugtiyo marka cinabkii ayay buug soo qaaday way akhriday ayeeyday dhanka joogan sawirtay xaaladeeda ay ku sugan tahay marka laba islaamood oo inaga ama reer Djibouti ama reer Somaliland ama reer Soomaaliya ama reer Djibouti iyagoo toddobaad jira ay buugta kala yargisanayaan bay horta horumar lahayd qoontiina ilbaxnimadii ba kontonka iyo 60kii ku qarniyaalba la soo baranay sida meel xun ma taagni waynu dadaalana laakiin inaynu daba socono dadaalka ma aha waynu dadaalka garab socono shan shay hadii aad oran lahayd umada Soomaaliyeed waxay ahaan lahayd shan eray dad ku soo koobi lahayd oo dhiirigelin shan eray anu hadan shan eray oran lahaa waxaan oran lahaa jahliga saad uga baxdaan aqoon bartade صح هذا ما قلت فخرك ساد وقتك تانا تبعدا هذا ما قلت
si aad u noqotaan dal dadka kale ka muuqdana isdhisa صح hadda ma garatay si aad u yeelataan dal iyo dhul aad ku hirataan ilaashada صح hadda ma garatay si aad u heshaan dhalinyaro caafimaad qabta aqoontooda dhisa xasan dhuxul absaalax aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo inaan ku waraysto bahda buti tv oo isku duuban aan ku mahadnaqaynaa aan ku rajaynaynaa fan wanaagsan caafimaad cimri dharar iyo ilaahay inuu guul badan ku siiyo. Waa mahadsantahay walaal.